in gabadha muslimadda ahi jirkeeda ay banaanka keento misana video ama hays ay isdul saarto iyadoo maxaasinta jirkeeda qayb kamida uu muuqdo run ahaantii waa arin aad looga sariigoodo lagana naxo xaqiiqduna waxay tahay gabadha muslimadda ahi Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu amray inay jirkeeda ay asturto hadii ay dhacdo marka maxaasinteedii iyo xubnaheedii jirka qaybihii ugu muhiimsanaa inay banaanka keento arrimo dhowr ahba waqti xaadirka waa ay ku dhacday horta la yaab ma lahana waxay arrinka ku tusinaysaa in dumarka zamankan jiro ay banaan dhigaan oo xubnahoodu banaanka ay keenaan wa calaamad horta ku tusinaysa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabinimadiisa iyo rasuulnimadiisa inay xaq tahay waayo qiyaamaha markii uu soo dhow yahay calaamadaha nabiga uu sheegay waxa kamid ahayd qabdul istixyaa'i min an-nisaa dumarka oo laga qaado xishoodka gabar marka maanta video ama hees isdul saarayso misana ku dhaxniikinayso misana iyadoo xubnaheedu ay muuqdaan xishoodi inuusan jirin waa mid muuqata shaki kuma jiro marka waa calaamadaha lagu garto in qiyaamaha uu soo dhow yahay taasi waa taa dhinaca labaad gabadha jirkeeda banaanka sidaa u keenta misana niikinayso allihii uunsay iyo khaaliqii adduunkan keensaday ma aysan ka xishoon mana aysan ixtiraamin mana aysan u hoggaansamin amarkii Allah subhanahu wa ta'ala jirka iyada ma aysan abuuranin xeelad iyo farsamo ay leedahayna quruxda kuma aysan samaysan ee Allah tabaaraka wa ta'ala baa ku manaystay una abuuray qaabka haddaba rabbigii abuuray iyo khaaliqii abuuray adduunkan keensaday kama aysan xishoon ilaahi subhanahu wa ta'ala ka baq oo rabbigaaga ka xisho waa marka saddexaad amaanada Allah uu ku amaanaystay ma aysan xifdin waayo xubnaha jirka iyada ma laha mana aysan abuuran awood ay leedahayna kuma aysan samaysan xeelad iyo farsamo ay taqaanana jirka kuma aysan dhisan ee Allah baa ku amaanaysto siiyay berina in laga xisaabinaayo way aaminsanta waayo waa gabar muslimad weey gaala kama hadlayna waxaynu ka hadlaynaa waa dumarka muslimaadka ahi oo cisyaanka la yimi way aaminsantahay in birrito la weydiin doono maxay marka rabbi kula hortagaysaa markii la dhaho maxaa sidaa u samaysa amaanada xubnahaagii lagu amaanaystay maxaad u dayacday hadii birrito ilaahay uu weydiiyo una weydiinay shaki kuma jire maxay ku jawaabaysaa may aqligaagi garaadkaagi may waxaad ku dabadayanaysaa dumar asxaab aatihiin oo saaxada iyaga ka dhacay miyaad iskaga dabadayanaysaa ileen badana arrimahan waxay ku imaadaan waa un isku dabadaysashay waa marka afaraad gabadha dad baa mas'uulka ah aabba dhalay hooya dhashay habar yar bay leedahay walaal baa la dhashay abti bay leedahay aaway ixtiraamkii familkeedii ay iyada ka soo jeeday miyaysan familka sharaf xumo u ahayn gabar qiimo leh oo qaangaar ah oo aqli ilaahay uu siiyay oo familka ka dhalatay oo misana qaawan oo xubnaheedu banaanka yaalaan haddana niikinayso miyay ilaaliso sharafta familkeeda way caddahaydee waa arrin cad ma aysan ilaalinin aabaheed sharafkiisa ma aysan ilaalin waayo hadii la ogaado ama lagu arka arrinka iyada aabaheed sharafi uma taalo dadka asxaabtiisa ahna lama sheekeysan karo way gabadhiisa waxa la leeyahay gabar nooca ah subhanallah hooyada sharafteeda ma aysan ilaalin waayo ceeb u soo jiitay walaalkii la dhashay sharaftiisa ma aysan ilaalin waayo ceeb u soo jiitay walaalihii la dhashay habar yar iyo abtiyaalna sidaas leek aawaya sharaftii familkaaga ilaalinteeda iyana lama hayo waa marka shanaade waxay taa ku tusinaysaa mas'uuliyadda inay dayacmatay in dumarku ay sidaas sameeyaan dumar basna ma ahe rag badan oo da'yar ah oo hadda soo baxayo
ayaa dhaqanka yaqaan inay muusig saartaan ay ku dhaxniikiyaan iska duubaan saasma haddaba waxay taa ku tusinaysaa dowrkii ama usradii iyo familkii mas'uuliyadda dadkii ka saarneed inay dayaceen mas'uuliyadda dadkii saarneed inay dayaceen oo aysan la socon ubadkoodii oo imhaaliyeen oo dayaceen waa nasiib xumo bal waxaaba dhici kartaba inay ku saacidaan waalidiinta qaarkooda ficilada ay sameynayso way ku garabsiiyaan kaamiraadka iskaga duubayaan ama mobilada iskaga duubanayaan nasallallahu salaamata wal aafiya والله ميوسن أورن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا من كذا النوع يحبنها قرحون وبنانك لكينو مياد مودان إن نار تالس كيغا إلالينايو ودكتهين إنت نار لغو قلايو نسأل الله السلامة والعافية إلهي سبحانه وتعالى حق الله إنه سوغي قبريه مسلمة داهي iyo wiilyahu muslimka ahi xisaab baa inaga dambaysa maalin buu rabbi tabaaraka wa taala nabalmi ka xisho rabbigi adiga ku unt wallahi waa wax adiga ku dana wallahi waa wax adiga ku anfacay wallahi waa wax aad birita ka shalay doonto intaanan aakhira la gaarin adduunyadan dhaxdeeda aad uga shalay doonto xijaabka gabadha muslimada iyo asturkeeda iyo arrimaha lagama maarmaanka ahi waynu tilmaamnay laakiin qadiyadan waxaan ugu darayaa waxay tahay waaqica iyo xaaladda hadda taagan oo aad wada ogsoontiin dhamaantiin misana aad ka warhaysaan ilaahi subxaanahu wa tacaala waxna kama qarsoona khaaliqiina uuntay haddaynu ka xishoonin yaa mudan oo laga xishoodaa